أحمد سعيد عقب بي بي سي هرقيسة. أحمد سعيد عقب بي بي سي برعو وما قال لكم شيء. أحمد سعيد عقب بي بي سي بورما. أحمد سعيد عقب بي بي سي سيدة. أحمد سعيد عقب بي بي سي عرقابو. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحونا كريك جمهورية الصوماليلاند مدحوينها خاتمه waxaan si gaar ah u salaamayaa Axmed Saciid Cige oo xafladda leh waxaan kaloo salaamayaa macallinkaygi Maxamed Xasan Waj runtii dee hadalkii waa la dhameeyo taariikhdii Axmedna waa laga sheekeeyey nuxurka buuggana aad baa loo faahfaahiyey لكن وحنا عاو قاعدين أحمدين السنة دي قوية تضباط اللي الحدي وكم حاجة دبسي السلام أنا تضباط اللي تضبطي وكم حاجة نحمد مدة أفرتك السنة وصحافتك كتيري صاحب معين مرة أنا كمان بدك أول شغالينه هي مرة كلامه runtii Axmed nin diblomaasi ahaa inuu diblomaasi ahaana waxaan aad ugu garanayaa doodii uu naga qaadayay saddexda musharax xilligii doorashada sida ardaydu loo maamulayay iyo brotokoolka lagu maamulayay wuxuu ahaa brotokoolka loogu talagalay in diblomaasiyadda lagu maamulo dadka Axmed وهذا هو كواري بيجي لكن ما أصله الطبيعة كمدة هرام واحد وعكمل العطب كان هرام واحد محكمة اللي ساري إسماعيل على بكر يوم أعتقد يرجع كلا السياسيين تها حل جاء وساري ده ما يدي بدنا وده شغلني مركب محكمة كسر دقيستو أنا بهذا يجي من دقيسين تري وهكذا runtii Axmed aad u xasuustaa dhacdadii shirgudoonkii aan ka midka lagu dooranayay iyo sidoo maalinta mikrofoonka ula dhex qaadayay xildhibaanadii iyo ciidankii eriyay isaga waxaan isleeyahay waa runtii documentary oo sameeyay ee live loo sii deynay wax badan buu dadka u bayaaniyay oo aan markii hore bayaanay أحمد هذا بدل المسميه بوجا تاريخ بدل بوكوراي وبوجي ماله آخر بقول بيت كبدلوي وأصله وقت بدل بوجلي تعب بدل بوجلي ورياش كوري يصحفي صحفي كوري سينا ولا شوغان كل كده بيه ولا شوغان وحنقريا إنه هاوري الحالة oo ku shaqeynaya etiga journalismka waliba diblomaasiyadda u dhaafay wuxuu yahay saaxiibka Axmed markii qaadkoodna ilaa imaka la taliyo leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh